tababaraha kooxda Barcelona Koeman ayaa u madceliyay goolahiisa reer Jarmal Marc-Andre ter Stegen kadib guushii ay ka gaareen kooxda Dynamo Kiev. Kooxda reer Spain Barcelona ayaa guul ka gaartay garoonkeeda Camp Nou naadiga Dynamo Kiev kadib markii ay kaga soo adkaatay 2-1. Blaugrana ayaa waxaa kabtankooda Leo Messi iyo Thierry Henry ayaa goolasha u dhaliyeen. Marc-Andre ter Stegen ayaa ku soo laabtay dhaawac jilibka ah wuxuuna ka caawiyay kooxdiisa Barcelona inay guuleysato wuxuuna ka badbaadiyay in ka badan hal kubad oo halis ah. Ter Stegen ayaa 6 fursadood ka badbaadiyay kooxda Dynamo Kiev oo toodii ugu halista badneen oo ka badbaadiyay ciyaaryahanka Vital. haddaba Koeman ayaa wareysi bixiyay kadib ciyaartii wada ciyaareen kooxaha Barcelona iyo Dynamo Kiev wuxuuna u madceliyay goolahiisa Marc-Andre ter Stegen wuxuuna yiri Marc-Andre ter Stegen wuxuu cadeeyay inuu yahay goolahayo weyn wuxuuna naga caawiyay inaan guuleysano dhamaanteen si wanaagsan ayuu tababar u sameeyay muddadii ugu dambeysay waana ku arki karnaa taas kulankii xalay ee Dynamo Kiev. Tababaraha Barcelona Ronald Koeman ayaa u madceliyay goolaha reer Jarmal kadib kubado 6 fursadood oo ka badbaadiyay kooxda Dynamo Kiev.